السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدنيال داوديال دمانتين كسر دوادة سنان تي في أذا عدى عدك مدح بنان maanta oo salaasa waxa sidii caadada ahayd aan barnaamijkeeni siyaasadeed kulanka siyaasadeed aan ku sii soconaynaa waxa maanta marti noogu ah saad wada arkaysiin afar rag oo culus oo kala ah waa warsame migil mandela loo yaqaano faarax cute roble iyo yaxye aadan xoosh insha allah waxaan maanta falaqayn doonaa waxyaabaha siyaasadda jabuuti ku soo kordhay saynkee maandaagan la shaaciyey isku tegan lagu yimid iskugu soo ururiyey dhalinyarta xero kubadda iyo xaaladan caafimaad ee lagu jiro waxaan kaloo ku dari doonaa insha allah aan ka faalan doonaa askarta la dareeriyey iyakuna waxay ujeedada loo dareeriyey waxaaba insha allah arrimaha baan kala falaqayn doonaa iyo wixii kale ilaahay meesha uu naga soo dhawaajiyo waxaan leeyahay ku soo dhawaada Sinaan TV مدنا سلامة مدنا ميغيل كسودو وهي هذه iyo bahda Sinaan TV iyo Yaxye iyo qote qaar qote dhamaantiin iyo bulshadana dhageysanaysa amba intana dhageysan doonta iyo dhamaan umada reer Djibouti waxaan leenahay assalaamu calaykum waana dhownahay عليكم السلام فارح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد يو كوحنا تكنيك سنان تي في وعن السلام يا مرتي شرف كقالقة وبرامج عاون نقلص وقيب قلي ميغل ورسمة مانديلا يحيى هذا الحوش آدي والسلام يو دمان بلشدة رير جيبوتي دافعها الدنيا ان كوكلا داسن kuwa dalkii jooga dibnaha ka xiran iyo kuwa dibadda joogaba waan islaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaxye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمان ورت marka ugu horeeya waxaan salaamayaa Sinaan TV iyo hawlwadayaasha dhanka farsamada iyo dhanka daadinta barnaamijkaba waxa kaloo aan u salaamayaa walaalahaygan halkan caawa aan arintan wada daadahin doono amba aan wada wadaagi doono faarax cute iyo migil mandela oo dhamaantoodna leeyahay waan salaamayaa walaalayaal dadweynaheena reer Djibouti gudi iyo dibadba iyaguna daawan doonana si gaar ah oo goobaabinayaan u salaamayaa waanad mahadsantaan dhammaantiin waan iga mahad celinaynaa baaqaad nagu soo jawaabteen iyo waqtigii aadna siiseen ee qaaliga ah Sinaan TV wuxuu leeyahay shukran insha allah waxaan maanta sidaan qodobada aan ku soo xusno xaggan yaan iska bilaaban doonaa su'aalaha kulley 3 qof baan nahay way iska custaanayaan waxaan jecelahay laakiin haddii uu qofkani su'aal amba jawaab bixiyo ka ku xiga hadduu wax ku diirino ku darayo inuu ku daro way u furan tahay maftuux insha allah su'aalahana waan iska bilaaban doonaa waxaan ku bilaabaynaa ta ugu horeysa horta wixii ugu dambeeya mayd keelis maxaa qof dhinta kii ugu dambeeyay si loo kooriyaa loo dhintaa dadka loo kalaasaa waxaan jecelahay bal maandaabaa soo ina Cumar Ismaaciil Cumar Barzaanku wuxuu shaaciyay inuu mar labaad soo laamayo oo Jan Afrikna uu ka sheegay
dadna waa isku soo ururiyay bishii 17 isagoo ujeedada lahaa in la jecel yahay ummadda caalamka tusaya laakiin waqtigan la joogo munaasib may tahay dad in la isku soo ururiyo oo meel dad intaa qof la isku keeno aw mitirkii adduunka ka jiray mitir kala fogaada cudurada iminka la sheegay cudur kala soo baxeen maqlayno arrintaay waa maxay see u dhici kartaa oo see uga suurtooday waddan mandala hadalka waan ku sinaa ku horey xaaladda jabuutina dee waa ishaa lagu wada hayaa nin walbana maanta uu dhegtu u taagaya xaaladdaas sida ay u socoto iyo waxa ay ku dambayn doonto waxaan ku qiyaasayaa dadka meesha la iskugu keenay maalintiidooda waa kaan lahaa madaxweynuhu aqaladiina fadhiyadiibuu iloobay marka la jifiyaana bannaan markii mudaharaad laga baqana in la yidhaaho maaragtay guryihiina fadhiya dadka marka la rabo in maaragtay inkastaba laga rabana iisoo baxa la yidhaaho waxayna tusaysaa inuunan wax sharci ah oo la raaco oo loo hoggaansan yahay ama lagu dhaqmo uuna jirin oo waxay ka dhigan tahay la jiifiyaana bannaan la joojiyana bannaan intaasaan kusoo gabagabaynayaa faarax cute hadalka adaale bal isku dhawaashaha iyo distance wixii mitirkii la eegayay caafimaad iyo wax cawaaqib ku yaalatay noo raaciye faaraxow waa maasan tahay saciidow horta markaan caalamkan aan joogno aad u fiirsatid dowladaha horoo maraya dawooyinka haysti waxay leeyihiin dadka iyagow dibadda ha u bixina afka daboosha kala durkana oo mitir iyo bar kala durka afrikada waxaad arkaysaa nimankan afrikaanka ee kursiga uuna u muuqdo waddan kaloo waxaan arkaya isagana meetinya laga qabanayo election doorasho ka dhacayso afrika central republic afrika central yacni dad badan oo meel waa dadkaas waa dadaan dawa haysan meeshan cajiibka yaalla ee caalamkani aan taagannahay aan joogno waxa halkaa waxaa ku tusaysaa madaxda afrikaanku inay kursigooga uu u muuqdo iminka haddii aan dhahno iyadoo coronavirusba dadkii uu laysqaadsiinayo war mucaaradka u sii daa bal inay soo baxaan wuxuu odhanaa ismaaciil ha soo bixina mucaaradka soo bixinu leeyahay laakiin dhallinyartii laga soo guray iskuullada oo iyadoo shandadihii yaraayo iskuulka dhabarka ku sita la qaaday oo la isku geeyey stadiumka xaafadahoogii markay ku noqdeen durigii bay dadkii u geeyeen waayey leedahay ka yimaadeen dadkeennana waad og tihiin ilaa awowgiiba aqalka fadhiya qayra mas-uulnimo weeyintaasi mar labaad wuxuu muujiyey uu caddeeyey inuu cumar geelle inuu kursigiisa maahine dalkan iyo dadka iyo dalka iyo dadkiisaba inuuna danka lahayn uu darajada kursiga iyo dufanka u muuqdo bas intaa baan kusoo koobaya cawaaqib maxaa ka dhashay dadkii kala qaaday oo dad looga laamay oo dad weyne oo buka ma jirtaa dad badan baa la sheegayaa dad badan xiriirkan dhulka la leenahay maalin walba dadkii waxaa la leeyahay waaba wax jiraba xanuunkan iminka sidoo u socdana dhallinyartaa qaada oo u geysa waayeelada dadka guryaha jooga halkaa dad wixii ka dhacay waad ogtihiin ismaaciil cumar dembi qaran buu galay iyo kuwa dufarraayeyaasha ah ee durmaanka u tumaya ee carruurta hor joogay intaasoo dhanba waa dembiilayaal weeye qarankan iyo dembi ka galeen yaxye walaal siduu mandela sheegay waa la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan dad mudaharaadii waa la xidhay ururkii dadkii in laysku ururaan looma ogolo xero kubaddana dadka oo dhan baa laiskugu yeedhay oo weliba la garab joogay maaragtay jaad iyo lacag dadkani markay buko iyo xanuunkan jira dhakhtarra ka jawaaba dadkani hadduu xanuunka ay sidaa ku dilaacay iminka warar baa haynaa iminka siduu farax sheegayo dad inay xanuunadii daaweyn iminka ay bukaan baa la sheegaya dowladdani itaaliya kaga hortagta ma haysaa maxayna haddana arrintaa iyadoo uga taxadarka intaa la geli weyday dowladda yaxye male maqlaya waan ku maqlaya
ملا حاجة وهجاجية سواشا هداد مانديلا هداد كوكو سلامي كرتو سواشا سيفي عن أنا يقول لابنتي وحويان maanta waxaan maqlaynay oon ka dhegaysanaynay wararka madaxweyne iloobay muxuu ahaa bahashii maradii afka laysku xidhayay ayuu iloobay isagoo qof la hadlayo nacab si uu qofkii hadalka u gaadhsiiyo ma iloobin ayuu ka qaaday maadaamaad madaxweyne tahay oo aad tahay qofka exambaleka u ah sharciga iyo dastuurka waxaa la yidhi waad ganaaxan tahay uu qaatay ganaaxii oo lacagtii lagu ganaaxay iyo de kamaradiiba telefon waa la sawiray marka la sawiray waxa la yidhi fadeexadaasi way ku taallaa wuxuu yidhi waan qaatay ganaaxiina waan bixinayaa bulshadana waan u caddeeyey marka waxaad iminka su-aashaad weydiisay waxay ahayd maxaa consequence ka dhalanaya maxaase lagaga jawaabayaayoo kabasiteegii iyo kahortagii iyo maxaan ku dhaayay maxaa dowladdu haysaa marka la rabo in dadka la badbaadiyo oo bulshada nolosheeda la badbaadiyo ayaaba dee xisaabtaasi timaada laakiin markay tahay wuxuu dhowrtay anaana ku dhigay anaana ku dhamay dee waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay gorof aad caanaha ku shubatay ama weelkaad caagaha ku shubatay ee galaaseerkaaga dhigato kolla la baxaysi kolla ku celinaysid cidaad aad ruqsad uga qaadanaysid cid aad sharci aad ka cabsoonaysid ma jirto waan ognahay inaynan caafimaadku uuna lahayn tayadii loogu talagalay koortagii loogu talagalay kolka horena ay kambaani uuna ay raaciyeen adduunyada israaciyeen iminkana ayna u hayn dadkaasi maanta haddii intaa kun ee qof ee xanuunkaasi soo ritay oo dhan ayaa bugta Ismaaciil Cumar haddii laga yidhaaho oo loo celiyo jawaabta oo la yidhaaha dadkii iskugu soo baxay xero kubadda tiradoodii tira la-eg baa ummadda reer Jabuuti bugto allahuma ballaqtu ugu jawaabaya jawaabtiisii hore baan u helnay waxay ahayd jawaabtiisu allahuma ballaqtu marka allahuma ballaqtu kolka uu leeyahay iyo kolka uu leeyahay dee ii soo baxa dee waxa weeyaan waa arrintaas qabanayn waa mas-uuliyad la'aan waa ku soo celinaya waa mas-uuliyad la'aan isxil saarid la'aan iyo dee maaragtay la xisaabtan la'aanna way ku jirtaa marka waa ummadda waxba kama gelin ujeeddada rabitaankiisa siyaasadeed yaa wax kasta ka horreeya ujeeddadiisaa ka horreeya rabitaankiisaas iyay wax ku suurtagalayaanay ku socdaan ummadda intaa leeg wixii dib gaadhayo iyo wixii soo gaadhayo iyo hadday waxba kama gelin laanna daraad wuxuu yidhi guryihiina fadhiya allahuma ballaqtu buu yidhi maantana wuxuu yidhi ii ooya uu isku keenay haddii berri la yidhaaho dadkii way bukaana allahuma ballaqtu duun budda ku soo celinaya wax kale uma hayo waan fahmay insha allah waxaan filaynaa yaxye waxoogaa farsamada cilada ka dhacday sa laga soo qorayo weli hadda linkiisi baa leeyahay markuuna soo gaadho insha allah una soo gaari doonaa intaa munawan doonaa haddaba waxaan joognaa su-aalihii baan sii galaynaa waxaad halkan barnaamij hore ah ka baxay toddobaadkii hore faarax iyo mandela alxamdulilah ininkeeba ahaydba waxaan isweydiinay ma imanaya hadduu yimaado iyo waddanka xukumi waxaan jecelahay su-aalihii aan isweydiinay ee jawaabihii aan isla meel dhignay dadka inaan u sheega maanta ugu cesho si aan jawaab kale aan iga weydiiyo su-aashu waxay ahayd bal saynkee mandaa buu soo laamayaa baan yaa la hadlayay oo la sugayey tii waxaan iska nidha ahayd bal 99 ilaa maanta waddanka ayaan qiimeynaynaa waxaanan ku qiimeynaynaa 5 shay bay ahayd yaan isnidhi dowladda oo xagga oo ciidanka noqonaysa systemka dowladdu ay u shaqayso xagga administrationka waxa ay u shaqayso system u shaqeeyo lacagtii waddanka ee dadka ay u dhaxaysay iyo xuquuqdii shakhsiyadda xorriyadda qofka bini'aadanka intaaba ayaan ku qiimeynaynaa baan isla ahayd intii jawaabaha aan ka gaadhnay aan naga helay aan isla gaadhnay horta ciidankii maanta dhulku yaallaa isaga su-aasha waa maanta dib bay u soo laamaysaa oo qaar baa soo baxo qaar baa laga sii dhiciifiyey oo dad laga eriyey waxa systemkii waxaan idhi systemka waaba keligiiba oo hadduu maanta saa u dhinto system keligii u raacayaa wax ka haray ma jiro yaan sida ahayd
تكلم واحد سيده lacagtii waddanka ee dadka u dhaxaysayna isagay ku ururtay jeebkiisaan sidaahateena isaga yay ku ururtaan dheed oo dadkii maanta waa faqiir isagaa taan jira isaga ehelkiisii iyo wuxuu soo ogyahay yaa taan jira waxaan kaloo taa xorriyaddii shakhsiyadda bini'aadanka yaan taana waan ka hadlay oo jawaab waxaad tisaan bahayd dadkii maanta cabsi yaa loogu bedelay xorriyaddoodii oo way baqaan waayo haddii kale jeel iyo si xaq darra ayay u xidhan yihiin oo waxaan soo hadal qaadan dad badan oo fuwaad iyo gabas iyo rag caynka iyo in kaloon ogeyn imika intan saynkee maandada ka soo horbaxay noo tiri haddana aan video aan nagu tusi doono ay ku jiraan kolka intaa baan isla garanayd inta xaaladood halkaa ay marayaan su'aal kalaani weydiiyey oo su'aashii kalena waxay ahayd war haba soo dhigtay isagoo cidda loo footeenaya ee shaqayn doonta run ahaantii wejiga qofka shaqayn doona xukuumadda u shaqayn doona ee lagu talagalay la isku dhibay waa ayo yahayd tiina waxaa isleeyahay eetaa barleel iyo dad ayaga kuwaatoo la shaqayso inuu isaga ahayn uu isagu waddanka waxba ka weyn inaan isla garanay okay haddaba intaa waa intii aan isla soo garanay haddaba su'aasheeda ayaa maanta ah uu is officialiseeyey si cad buu soo joogay marka hore waa iska joogayn laakiin uu si cad buu sheegay afkiisa ka soo baxday maanta haddaba dadkan la shaqayn doono dadkan dowladdu ay la dooranayo ee la shaqaynayo waxaan isla garanayaa eetaa barleel iyo dad kale oo isaga daba socda ayayna ku shaqaysanaya haddaba waxaad ii sheegtiin bal shantii maaragtay arrimood ee soo sheegnay kolkay xaaladdu xagga yihiin waxa haddeetola halkay bal shantaa kale bal ma qiyaastiin halka ay geyn doonaan shantaa yaan doonaa bal noo sawira shantaa shay ee haddaan isoo sheegay bal halkay geyn doonaan bal maxaan ka sugnaa ciidankii maxaan ka sugnaa systemkii waddanka maxaan ka sugnaa lacagtii waddanka la sii qaato haddana maxaan kasii sugnaa xorriyaddii bini'aadanka shakhsiga bini'aadanka haddana sidan imika maanta joogto haddana maxaan ka sii fiirnaa kolka haddana waa awrkii kici kari waaya haddana wax lagu sii qaado bal waxay tahay bal noo macleeya kolkaa mandela su-aasha inaa fahantaan filaya waad mahadsantahay siciidow su-aashaas waa su-aal weyn oo muhiima ummadda reer jabuutina way isweydiinayaan oo weli waxay garan la'yihiin iyo waxa la fahmi la'yahay waxa ka dhalan doono ninkaasi hadduu ku soo laamo meesha horta waxaa tidhi uu is officialiseeyey baa tidhi oo uu sheegay inuu ku soo laamay laakiin halkaas inaan iska hubinaan rabaa oo nidhaahno ma ummadda reer jabuuti buu u sheegay inuu ku soo laamayo mise ciyaalku u sheegay journal freak yaa soo baxay maanta oo magaciisana ku hadlaya journal freak baa soo baxay maanta waan arkaynay waraysigii ertedada jabuuti ay la yeelatay oo isagoo balayda beebelka iyo wuxuu ka soo baxay ma aqaana waqtigii shirka soomaalida dad baan heshiisiinaya uu lahaa igaad iyo waxay tahay ma aqaano balayda beebelka waraysi lala yeeshay waan arkayay oo uu lahaa waan dhegaystay waan arkay waanan ku raacsanahay waanan dhaqaajinaya uu yidhi de waa taas baa xitaa afkii soomaaliga uu ku sheegay inuu diyaar yahay uu qaatay laakiinse dee waxa uu la hadlay baan ka wadaa uu kelmaddaa yidhi anutan jan afrika ma akhrisan kelmaddaa uu yidhi dhallinyarada waxay ahayd baan u malayn shir uu ministerku qabanqaabiyey haddaanan khaldanayn iyaaban u malayn minister de muxuu ahaa education uu shir u qabanqaabiyey oo markuu ka soo baxay yaa la waraystay marka dhallinyarada waan la socdaa waanan dhegaystay waanan arkayey waanan aqbalay de inuu yidhaana u fahmay sidaanan u fahmay marka anigu waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay de ismaaciil cumar wuxuu la hadlay dhallinyaradii uu soo afduubay unbuu la hadlay ummadda reer jabuuti weli lamuu hadal baan anigu yaan qabaa 5 sano ee soo socota maxaa ka dhalanayo haddaad tidhi kow waxaad arkaysaa inuu ciidamadii maanta birta la dhex galay uu durba maaragtay qayb retreat force wax la dhahaa uu geliyey uu dareeriyey si uu maaragtay awoodda uu iskugu sii ururiyo oo dadka maaragtay awoodda maaragtay amba aqoonta leh amba awoodda uu uga baqaya inay wax ka ogaadaan inuu ku horreeyey uu ka sifeeyey ciidamadii baad arkaysaa waa xaaladda koowaad waxaad arkaysa maanta aabba reer jabuuti ah oo halkaas soo fadhiistay oo yidhi dhowr iyo 50 jir baan ahay weligay ma shaqayn aniga ilmahaygu waa shomeer ciidan ku cunaa balaas maxamuud xarbi
cabasho iyo maaragtay calaacal halkaas soo dhigay ma ogolin tacaddi iyo in sayka manda aad ku soo laabantid yidhi in maanta maxaan ku dhahaa oohintiisa halkaa uu soo dhigay ummadda reer Jabuuti uu xanuun caloosha uu beer xanuun ku riday oo si xun loo galay oo xoog sheegtay oo la silciyey oo laga qaatay wixii uu maaragtay meherada yar uu maaragtay uu ka helayay bariiska waxa 5 sano soo socota laga dhaxlayo sawirad waa ka sawirkeegii hordhaceegii baan anigu aan ku tilmaamayaa waa ka taasa ku qiimeynaya anigu xagga dawladda systemka dawladda ku shaqeeyo systemka dawladda wax iska bedelayo de waa markii shanaad wuxuu imika soo laamay laakiin 4 jeer ayuu ku soo laamay 4taa jeerba ummadda wuxuu u ballan qaaday inuu hagaajinayo xagga administrationka iyo xagga nolosha dadka iyo xagga cadaaladda iyo xagga shaqada iyo xagga nadaafadda de 4tii jeer haddii ay waxba ka fuli waayeen oo wax maanta la arkayo oo ka fulay ayna jirin wax sii baaba'ay maahine maxaan ku dhaayay ballantan shanaad waxay ku soo kordhinaysaa ma jirto de 4 ballamood ballanta shanaad waxay ku soo kordhinaysaa ma jirto marka la isku barbar dhigay wax alla waxay ku soo kordhinaysaa ma jirto waa tacaddigii baaba sii bilaabmayaba waa kan ku sheegay iyo awood boobkii marka waxba kuma soo kordhinayso tirada kordhaysa alla ilaahay halka ay 43 ka ahayd inay noqoto 48 tiradaasa kordhayso wadhantahay farax roble waxaan jecelahay inaad miisaanka aad halkaa deja iskaba khaaliska imika ee buka kolka 5 dambe lagu sii laamba bal sawirka ay noqonayaan wax naga siisii doo sawir horta waad mahadsantihiin bal yaxya maad fiirisaan inuu ciladii ay ka dhamaatay uu joogaa yaxye hadduuna maqlay yaxye waan joogaa nin maqlay si fiican waxaad yaxye hadalka u tagi marxaba mudane yaxye waan jecelahay su'aasha maan kugu celiya mise maad fahamse waad joogtay waxaan ka soo gaadhay walaalkiin cilmi mandela ayaan ka soo gaadhay wixii aan ka odhan karayo umaan ka odhan insha allah horta waxaan jecelahay inaan kugu soo cesho su-aasha inaan kugu soo ceshaa jecelahay okay waxay ahayd iyadoo sida dhamaytiran horay waxaanu nidhi waddankii waxaan waxaynay oon isweydiinay oo aan dhow ka sheekaysanay oo aan maaragta isla qiimaynay dhowr shay baan ku qiimaynay dowladdan ciidankii oo dowladda ah iyo dowladdii systemka say u shaqayso iyo lacagtii waddanka dadka u dhexaysay wadda dhex taallay iyo xorriyaddii qofka bini'aadanka intii oo dhan jawaab baan isla keennay waxaan idha ahayd ciidankii maanta sidii ismaaciil ugu soo koray iyo maanta siduu yahay waa baaba dowladdii systemkii siduu ahaayo in cumar systemkii uu dumiyey oo isaga keligii baa isku xidhay oo maanta wax system oo shaqeeya ma jiro lacagtii dadka dhex taallay isaga iyo reerkiisii iyay ku wada shubantay xorriyadtii qofku lahaa oo maaragtay tiina cabsi baa lagu bedelaya jeelalkooy fuwaad iyo dad baa ka maraga haddana waxaan isweydiinay iyaa waddankan loo voteynaya haddii shankee mandaaga u yimiday waxaan isla garanay etaa baarleel oo iyo dadka oo in ku shaqaysanaya laftigiisa in cumar haddeeto inuu waxba maamuli karin amba isagu maxmaamulin baan isla garanay kolka waxa weeye maanta iyadoo koostaaga sida aan u arkayno kolkaan 5 maanta loogu beeriyo maantayba sidan tahee beritoole say noqon sawirkaa dadka reer Jabuuti maxaad u iifin karaysin yaad su-aashu waata haddaa fahmay kugu celin waxa weeye waan fahmay xaaladda jirtay dalkeena haysata weeyaan waxaad ka dhawaajisay oo 5 qodob ah amba ilaa 4 aan odhan karo haddaan ku horeeyo madaxweynaha dalka haysta mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu talada qabtay isagoo 56 jir ayuu tahay maantana 67 jir weeyaan talaabada uu ku qaadi waayay 56 jir kuma qaadi karayo 67 baan leenahay marka ugu horeeya waa qodobka ugu horeeya deebo iyo leese maaragtay dib u dhacii hore ee waddanka soo food saaray muddada uu joogo
wax madow uu sii gala maahine wax oo iftiima oo uu gali karaay waddanka ay ma jirto maxaa yeelay maalin waxa aad ku qaban weyday maalmooyin kale kuma qaban kartid waxa aad ku qaban weyday bilo waxaad ku qaban weyday sanad kuma qaban karaysid waxa aad 20 sano ku qaban weyday inta xukuumadda uu hayay Ismaaciil Cumar Geelena kuma qabanayo isaga oo noqon doona 18 jir waxba kuma qaban karay marka ugu horeeya waxaan nahay horta wuxuu galay mugdi buu galay xagga mas'uuliyadda mugdi buu ka galay xagga hanaanka dawligana mugdi buu ka galay xagga hanaanka isku dabaridka iyo leeyahay maaragtay ummadda bulshada sida loola dhaqmana mugdi buu ka galay baan leenahay intaasoo mugdi waxay sii dul fuulaya 5 sanadood ee iyaduna madow baa sii dul fuulaysa waxaad ka dhawaajisay dhinacii ciidanka waxa weeye wixii ciidan la yiri ee wax aqoon lahaa faaracu uu joogaa uu yaqaanaa dhanka ciidankana ciidanna wuu soo ahaan jiray khibrad badanna waa u leeyahay wixii aqoon-yahanaha ee lahaa heer jaamacado amba heer iskool xagga ciidanka looga soo baxo école de censure amba école d'application amba école d'état-major wixii la odhan jiro dhan rag maray maanta xabta ciidanka maxaa yeelay ninka doonaya inuu kursiga sii fadhiyo dadka khibradda leh amba la garbartami karaya ee la barbar dhici karaya ee khibraddiisa amba hagadaamadiisa yaqaana ninkaasi ma ogolo marnaana inay dadkaas sii joogaan sidaa darteed ciidanka isaga dhibaatada gaadhay ee imankana ku sii daba jirtay waxay la halmaalaysaa dadka iyagu inay sii joogaan doonay dhaqaalaha ogaad ka dhawaajisay dhaqaalaha waa meel wata laga maamulaa ummaddu maba gaajoteenba dhaqaaluhu hadduu wax national oo dadku ay wada leeyihiin hadduu yahay lama maad aragtay lama hoosta lagama ooyeen dhaqaalaha meel qudhahaatay waa kees qudhahaato muftaxiisa la haysto tresor nationalka waxba ma yaaliin meesha ay yaaliinna waa haraamuus waa la wadanaa oo dadku way iska ogyihiin taas laakiin dhaqaale cidda haysata ayaa dee sheegan karaysa anagu dhaqaale ma haysanaan leenahay waddankeennu ma hayo waxaa dhacay waddankeena waxa waddankeena taala dhalinyarada shoomeerinta shoomaas total iyaa yaala waddankeena dhalinyarada ayaa hadlaysa waxaan dhegaysanay dhaar dhaweyd oo yacni maaragtay calool xumo amba maaragtay qalbi xanuun ku guridaysa dhalinyaro ilaa 7-8 oo nin kastiba ilaha master 2 baan haystaa master baan haystaa waliba filiyeerka uu doonayay inuu wax ka helo uu waayay dhalinyaradeena waliba waxa la dhaxalsiiyay walaalkayow qabyaalad waxa la yiraahdo ayaa la dhaxalsiiyay ilmuhu xafiiska loogu talagalay shaqo abuurka amba maartay la iska seejilo qolma tayba la leeyahay ilmihiiba dadka qaarkood lamaba weydiiyaba qolada koko sida qoladiisa ay uga soo baxdo su'aal laga yiraahdo adigu ma haynata aad doonaysid bal laga yiraahdo taasina waa waxyaalaha cajiibta liberté d'expression baa ku jira meesha hadalkaas taa horta nin ku dhaqaaqay inuu ummadda maartay sii fadhiyo ilaa intuu meydku ka qaadayo ninka sii fadhinay dee kuma ogolanay marna inaad hadashid marka dhibaatooyinkaas soo meeday ay sii xoojinayaan amba sii biirinayaan ay sii badinayaan tankii madooba ee la soo leenahay waan ka baxay okay farax waarun afar baan sheegay farax laakiin waxaan ka iloobay hayde kolkii loo dhibay waddanka u dhanaa oo waddanka antagaartaygiisa ee tashanata bay ahayd oo maanta waddankii u dhantaalan yahay bay ahayd oka shanta qodob inaad miisaanka si fiican u saarto ayaan dooranaa farax faacute waa la soo saaray aniguna kulley toliye wax yar baan ku dabageynayaa laakiin hadalku way dhameeyeenba oo ninkani waa fashil weyn madaxweyne fashila weyn nin fashilmay weeyaan siyaasadda inuu cumar keligii ma fashilmina dalkii oo dhan baa fashila dalku farax in cumaru ku daayba waa wax waa taa barlada kale waxaan isagoo sawir aan isla keenay mayo wax walba isagay ka bilaabayaan isagana ku dambaynayaan siyaasadda Djibouti marka laga hadlayo isaga laga bilaabay qabyaaladda haddii laga bilaabo qabiiladan ka hadlayno isagay ka bilaamaysaa dalkan la haysto u socotida integrity territorialka leedahay isagaa dhiibay kolka wax walba isagay ka bilaamayaan isagana ku noqonayaan
arrintaas aad sheegaysid horta waxaan doonaya tan ciidamada inaan hal era ka idhaahdo ciidamada cusub oo hadda dadku inay u baxaan retreed inay u baxaan xaq bay u leeyihiin laakiin ragga retreedka loo bixinayo waa goorma ma marka loo baahan yahay retreedka qaar unbaa baxa dad unbaa baxa ee dad ma baxaan ciidamada odayga ciidanka ugu weyni raggani markii uu ciidanka galay bay dhasheen qaarkood saraakiishan maanta la saaray waxay dhasheen markii uu ciidanka sakariya galay badankoodana waxay ka soo baxeen kulliyada caamka ah adduunkay ka soo baxeen howlahay soo qabteenna aadan cali aadan xumed ninka la idhaahdi sargaal krisis uu sakariye mas-uul ka ahaa oo soomaaliya ka dhacay amisom iyo jabuuti ka dhacdhacay ninkii xalliyey weeye cali aadan xumed waa sargaal caana adoon rale faarax su'aasha way dambaysaa guud ahaan baan ka hadlayay sida ku dambaysa su'aasha ugu xigta way dambaysaa ciidanku waxa ku dambaysa projection waxa doonaya waxaan doonaya waa caam ahaan adigu su-aasha waad weydiisay iida anigu defloba maaha hadalka su-aashu duduub oo liq maaha su-aal baad i weydiisay waan usoo socdaa shanta qodob waddankan wuxuu miisaanka ku saarana ismaaciil integrity territorialka iyo ciidanku way isla socdaan ciidanku hadduu fashilmo integrity territorial ma jirayso ciidankan la saaray xaq waxay u leeyihiin dadku inay retreed u baxaan hadalkan de antribson lagu samayn haddii kale hadalku qofku ka xumaanaya moogta albiso waxaad wadaa meel baad wadaa bas halkaa la maro ismaaciil cumar anigu waxaan u arkaa siyaasaddiisu inay fashil tahay fashil hadday tahay difaaca hadday tahay maaliyadda siyaasadda amuuraha dibadda waa ninkii qadar oo dalkiisa haysa qadar xiriirka u jaray ta guduhuna waa qabyaalad ta dibadduna waa kursi eeg dhaqaaluhu waa dilaal eeg bulshadu waa qabyaalad waxaa kuu soo hadhay waxay tahay tan uu sheegaya yaxya uu leeyahay dadka shaqada la qoro oo qabiil baa la baraa qabiilka madaxweynaha baray dadka isagaa baray ilma adeeradii baa hareera jooga nin walbana meesha uu fadhiisto qabiil buu ku samaynaya qabyaalad buu ku samaynaya waxaay oo dhanna dembiga waxaa la ismaaciil cumar waan ka baxay sax waa dhantahay lacagtan ururtay ee laga dhargay miyaad u arkeen in haddana lacagta afrikaanka hadda loo qaybin doono shan dambe dadku ha kacaan oo wax ogaa doontaan dadku haddaan dhibtii un sheegno oo wax kaloo lagu dhaqaaqaba waa inaan sheegno inay dadkani xaq uga doontaan ayna cabsoonin haddiina ay dadkani wax iska dhicin karayna deed ha iska jiifaan oo lacagta kameruneega iyo lase ivoriyaanka kuwa retreedka u baxaya yimaadiinoo malaayuun ha u qaataan maaliyaddan jabuuti taali dadkii lahaa ay ka gaajoonayaan ismaaciil cumar iyo jufadii sayr ay ku nool yihiin intay ka hadhay afrikaanka gaadhay iminka kuwan afrika dalweeska gala iyay gaadhay lacagtii dadku ka gaajoodeen sax haddaan hadalkiina aan jawaabtiina aan soo weelayo waxaan u maleeyey ciidanka dadka la saarayo ciidan kaloo ajanabi in la qortaa dhici karta systemku maanta halkaa uu joogo waa baaba laakiin uu sii dirnaan doonaa hadda warqadihii jabuuti waddamo kale lagu bixiyaa dad kalena fon suveran iyo waxbaa la sheegay hadda lacagta xagga la maray waa xagga lacagta liberté individual hadda dee jeelasha iska noqday caadi inta joogtana way soo bixi doonaan waa projectionka anu aan ka qabo waddanka saambu unba iyo tirin u haysan baan filayaa taas jawaabtiina aan ku soo koobo ninka oralia waxa haddaba su-aasha ku xigta haddii waxa maanta hubaala oo la og yahay kolkii sankay manda uu ku dhawaaqay iyo xero kubaddii waxyaabo maaragtay ilaa maanta aan fool xun iyaa dhacay oo ku jira reseau socioga waxaan jecelahay ninka inanka technicianka hadduuna maqlayo inuu waxoogaha video abal dadkii no oo sankay manda yidhi iyakoo xuquuqdii wadannimo iyo dimuqraadiyadda iyo xorriyatul qawlka ay u fasaxaysay inay qofkay doonayaan aqbalaan kay doonayaan ay diidaan
wixii ka soo gaaray waxaan jecelahay inaan waxoogaa video ku aragno hadduuna maqlayo technicianku waxaan jecelahay inuu noo soo daayo taswiraha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقرأ الله هذا مدري جبوتي يقرأ الله هذا ميدا هالك ساكا يقول شيء ما أنت waxaan idhaahaba ma garanayo meedhatii ugu weynayd baa heshay laakiin anigu nin xaqayga ka joogsanaya may nin ka aamusaya may nin ka hadlayana may ee soo dhowaada war baan idin siinayaa ummadda reer jabuuti saaka halkan ka dhacay jamhuuriyadda jabuuti ka dhacay kaartee-aan ka dhacay ay sameeyeen ciidamada booliiska ee kaartee-aan ku sugan taasoo aniga lay doonayey anigu dee waaban u sheegay halkan fadhiya balaas maxamuud xarbi baan ciidda cuna ciiddina cuntaabaan ayaan dhaweyd ka idhi waa run saaka way yimaadeen odaygu kunka farana biyaha uu ka cabbayo halkuu ka soo helaa baa la yidhoo halkan yar buu ka helaa baa la yidhi 4 beeroo gabdha ay siiyeen hadda gabdha ay siiye gabdho oy soo yidhaaheen milagaas ish lacagta 380 beer bay shan bacood bay ku kala gurteen dabadeeta waxaa la yidhi kuwan kalena ku soo dara masaakiintii kalena way galaafatay waxaa la wataa naxaabiistii ku jirtay premier disma oo qarqarkii sidii u qaawan oo shortiyaal seeta ciidanama gurin way dhaceen waxa yagi iyagoo qaqaawan baa guray wadaha yagi waxaan fadhinay hud baan iska fadhinay xagga dambe jawaabtii kolkaan idhina facebooka maxaa adii kuu geeyaa la iigu jawaabay eg meedhadaan sheegayaa meedhada maxaa adiga facebooka kuu geeyey
شاء الله. السلام عليكم مرة بعد. واحد تصويرها وتصويرها نحن وضي تضباطا كدو أم باللحدن وأويا وعيل هذه كرلا وليبا قرنا تصور كا سكودجا إني فور حنتا يقرأ لهذا وحنا كدم ب dadkii reer Jabuuti oo nooca saynka maandaale taswiiraha dadka aan tusnay dhamaan waa la xidhay isaan warar ku hayno marka qaarna waa la ururinayaa qaarna waa loo golyahay in la ururiyo oo soo ururiya qaarna waa la xidhayaa kolkaad waxaa aragto saynkee maadaan lagu qasbayo dadka wixii aan soo qiimaynayna wixii aan sheegno miyaanan la odhan karayn maanta maba joogtaba kursi iyo vote in la waxeeyey waddan dhan baa ku jira arrintu waxaa joogtaa waddanka see u badbaadinaaba joogtaa oo vote iyo kursi arrintu inay ka dhaqaaqday ma u arkaysin Mandela? waddan marka la leeyahay waa runtaada waan arkaynaa sawiradaas maxaan ku dhahaa aad soo dhigteen kow marka hore waxay ku tusaysaa in xaquuqna aanad lahayn jiritaankaagana la ogolayn maadaama dadkii iskugu soo baxay xirada ee ubadkii qasabka lagu keenay aad arkaysay 4 qof oo meel joogsatay oonan mudaharaadayn oo aqalkooga hortooda joogsatay oo Facebooka soo dhigtay sawirna 4tii qof baa la qaado la xidhay odayga Facebooka maxaad ka doontay leeydi horta odayga waan ka xumahay aad baan uga murgoonayaa waa qof aan qaraabanahay xitaa dhibta dadka reer Jabuuti oo dhan bay qabtaa qof gaar iyo qabiil gaar ma haysato laakiin niba markay ku dhacdo un buu ooyaa uu ka xanuustaa Facebooka maxaad ka doontay baa la igu yiri buu yiri Facebook ma Ismaaciil Cumar baa loo maraa ma booliiska loo maraa marka Facebooka la galayo ma aqaana ma dawladda Djibouti baa ruqsad la weydiistaa waa su'aal kala waxa weeyaan dadka sidaa loo galayo waxa tiri waddanka in la badbaadiyo waqti kursi iyo laga fikiro madax maaha waa in kursi waa waddanka ila waddan marka la yiraaho de waddanku wuxuu kala qaybtamaa labo waa territoire-ka iyo wixii ku dhaxnool de maxaa la dhahaa population-ka territoire-ku waaba la qaatayba waad ogtahay ilmusha waxa iibsatay muxuu ahaa Ethiopia dekada Djibouti Ethiopia iska leh oo ilaalsato oo ka adeegata dumeero waxa haysata Eritrea dadkii waddanka ku noolaana waa ka aad arkaysid ay sida u ooyayaan ay bila xorriyad u yihiin marka dad iyo dhul mid u nool waddankaasi ma jiro waxa aan oran karo oo maanta aan halkan ka sheegi karo de wax awal baan oranaynay waxa weeyaan in la isbadbaadiyo intaas ma ku oran baan anigu ku soo koobaya in la isbadbaadiyo iyo hadalkaasi haddii kala waxa dhici karta in maaragtay de la adooma ama wixii iskala faash loo oranayay de maaragtay dadka lagu dhaqmayay ay ka dhacda meesha ama de maaragtay de looga qaxaba de ma garanay meel loo qaxi karo iyo dad soo qaxi karaan iyo in waddanka looga bixi karana ma garanay marka in la isbadbaadiyaa ugu qurux badan hadalka kolka la murtiyeeyo amba la meelay meel aad u ordi kartid ma jirto si aad u ordi kartid ma jirto si aad waddan dhan oo u dhalatay oo leedahay aad dadkii dhanaay waddanka ee u dhashay ay uga wada bixi karaan ma jirto si loo wada aamusi kari ma jirto si loo wada ogolaan karo wax kasta oo la samaynayo ama duluma ama dhiba ama tacaddi ah
ama maaragtay hanti booba ama maaragtay shaqo la'aana ama maaragtay gaajo iyo xanuuno iyo waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday si loo wada ogolaan karo loogu wada mabsuudi karana ma taalo marka anigu waxaan odhan lahaa hadalka siduu murtidiisu tahay in la isbadbaadiyo wuxuu waa badbaada maanta inaan la isbadbaadiyo intaasaan kusoo murtaynaya mudane faarax horta waan isla ognahay taas waddankeennu de dalka waad leedahay dulmiga ka jira oo dulmiga taagan sidaa mandela sheegayo mandela sidaa sheegay in la isbadbaadiyo ay dadkani mar dhuftee mar kale dhuftoon ku haya ninba meelunu ka ooyay ninba gidaaru ka ooyayo in laga kaco tani waxa kaa hor yimaaday waxay tahay cadaadis baa jira cadaadiskan jira in la aqbalo xadkii uu dhaafay kolkaa dadkeennu waxay sugayaan ma garanayo goortay de ka kacayaan tani xorriyaddana laysma siiyo xorriyadda dulmigu horta wadaadna dee unala joogaa nin diinta aad ugu fiican iyo yaxya aadana ninkanna horta waddanka haysti oo madaxweynaha aan ku sheegayni dadkeennu waxay ku mamaahaan ballan la'aan waa diin la'aan weyn ballan la'aan waa diin la'aan qofka hadduu ballan lahayn diin ma leh kolkaa ismaaciil dhowr sano ka hor wuxuu lahaa anu markaas waan soconayaa haddana maanta waan joogaa buu leeyahay isagu ma joogee arrintii baan dib ugu noqonaynaa ahayd taa baraleelka sheegaysa iyo qolooyinka kale tuumbada nuuga tuumbadiina iminka kuwa kaloo afrikaanaba u furantay oo sii daynayn iyakuna maaha qoladii jufadoon maaha iyo baraleelkoon maaha kuwa kaloo afrikaanaba u furantay ninkaa gaajoonaya gidaarka ka hooyaya wixii uu cuni lahaa uu heli lahaa $2 milyan qaar baa mushaaro u qaata kuwaas lacagta la siinay lacag laga dhiso oo laga keenay maaha business waa lacag dadkan laga boobay oo loo diiqay doofaarada madoobe ka imanaya afrikada jooga meelaha la sheegayo kolka dalkani inay isbadbaadiyaan oy kacaan waxaad arkaysaan cabashadii socotay ee buldhuqo xasuuqeygii oo cadaalad helin weli tii arxiba dadkii odayadii abtiyaaladeenna ahayd maqlayseen annaku weli sidii bay u sugaynaa inay cadaalad helno isaguna joornaalka wuxuu ku yidhaahayd dadka magtoodii baan dhiibnay niman afkooga ku hadlay oo magtoodii baan dhiibnayna waa arkayna war meeshan tani dowladii ma jirto waxa jirta maafiyadana dadku in layska qabto weeyin in laga kaco weeyin xadhig baanu ka hooyaynaa in la dhinto weeyin xitaa dhimashadu mar bay xaq tahay marka halkan ay taagan tahay in la dhinto xaq weeyin hadalkuna inuu socdo maaha waa in raggani waxay ku talagaleen iyaku inay wax dilaan iyakii baa wax dilaya sidee looga hortagi karayn marka mushkiladda haysatay ee dadkeenni haysatay wax weyn war ninku dilayaba oo soo qaadanayo adigoo halkaas ka joogo siyaaro dhiganaya rasaas kula dhacayo leedahay adiga inaan nabad baan hayaa no taa waa in la iska diidaa waa in la diidaa waxaase ku qasray oon ku darsanaya oo su-aashaada ku jirin inaad igu qabat idiisana waan jeclaan lahaa waxaad su-aal aalad weydiin dadka waad ka joojinaysaa nin madaxweynaha baan maqlayo inuu cumar geelle shalay wuxuu ka lahaa macallimiinta ardayda wanaagsan macallin wanaagsan baa wax soo baray isaga ayaa wax soo baray habaarka ku dhaca macallinkii isaga wax baray ayuu ahaa kii isaga wax baray been buu sheegayaa xatooyuu samaynaya qabyaalad buu samaynaya wuxuuna leeyahay ardaydu macallinkoogu war ina cumaroo macallinkaaga adu ku ahaa anuba su-aasha baan weydiinaya hadduu dhegaysan lahaa ninkii u macallin ahaa isaga ayaan doonaynaa waxaas oo xumaana ayuu dalkii ka geystay waa hadalkan adigaa leh yaxye maxaad ku daray intan waxaan ku darayaaba ayaa yar laakiin waxa weeye tacadigan ummadda haystaay horta wada ogna dhirigsanna walaalayo imankana ma bilaamin siduu u bilaamayna waa wada garanaynaa ha kala yaraado waa soo tarayey baldhuqo waxay ka mid ahayd xeedhooyinkii buuxsamee ku dul hafsaday bay ka mid ahayd
ummadda maaragtay kolkay wax ku dhacan isku gurmanaysay ee isku gurman lahayd ayaa meesha ka baxday nin kale oo maxamed daahir la yidhaahdo wada garanaysiin ayaa habeen madow lagu tuuray meel aan la garanayn waa wadanigu wuxuu leeyahay inuu maaragtay xeerka maro xuquuqdiisana la siiyo midda labaad oo ninkan halkan ka ooyaya aad arkaysiin waxa uu ninkaasi tabanayaa waxa weeyaan waa ciil weeyaan waa wadankii Djibouti buu joogaa buu leeyahay ninkaasi aan joogaa wuxuu yiri ninkaasi waxa la ii soo diray buu yiri ciidan baa la ii soo diray dadkii maxaabiistii ahay socdaan nin maxbuusa iyo nin kale oo maxbuus laga dhigayo ayaa soo qabanay wixiisina soo qaaday waragii cadgoogii weeyaan sidee la naqshi wadankii aan lahayn ee jamhuuriyadda Djibouti aan ku faanaynay halkaas uu socdaa iyo maamulo wadankan dadkan islama hadli karaan ayada quraan ay jiro oo nimanka maaragtay gaalada ku soo yaxsabuunahum jamiican wa qulubuhum shatta waxay ka dhigan tahay ayadu dadkan dawladda xukuumay inay wada socdaan ay wadanka difaaciyaan bad moodaysa laakiin qulubtooda sida u kala jeedo kala duwan oo nin kasta laakiin waxay ka midaysan yihiin masaakiinta gaajoonaysa inay isugu yimaadiin ay iyaga gowraan ay ku talagaleen mid labaad waxa weeyaan ballan ku kala yiraahdo ilaahay ballanta meel buu dhigay wa awful ahda in al ahda suula warde ballantani faarax uto hada aad ka dhawto dan loo imaka waxay gashay xaalad lagu salayn jiray ba nimankii maaragtay mulxidiinta wax diidayay lagu salaynay bay gashay baash amba annaka la jir amba waan ku sameeyay wayna dhacday yaana waxay ka dhigan tahay la nukhrijannaka amba waan ku saarayna amba annaka oo takunu macana amba annaka sawi marka wax murtidu hadalku wuxuu dhimanay war wadankani xaalad buu galay xaalad in la badbaadiyo ayuu galay wadankani war cid wadanka naga xigti ma jirto jacaylkiisa martabadiisa wax ku yeelishadiisa xuquuqdiisa cid naga xigto oo anaga naga jecel kuwan waan jecel wadan kale ee sidan u baabi'iyay hadday halkan naga soo qaban kari lahaayeen way naga soo guri lahaayeen kuwa Djibouti ugu xidhan oo taashka u ah inay qabsadaan ku dhaq ay ku cambaareeyaan ay ugu hal qabsadaan wax loo jiga weeyaan laakiin annagu waxaan leenahay maanta haddaan fursadan haysano dadkan maxaa u diiday inaan annagu maaragtay ay aanu noqono de dadkii hor dibaduna waa hawl bay guduhuna hawl guuleeyahay marka dadka gudaha dhibaatadu iyaga maadaama ay ku dhacayso waxaan leenahay walaalayaal laba goor ma baxdo saddex goor ma baxdo waa mar quraatay riziqana cid haytay ma jirto ismaaciil ma hayo cid kalena ma hayso tacaddi iyo le samarta caga jugleyna meel ma gaadho marka dadweynaha reer Djibouti annaka oo nila hadlayna wixii loo oran jiray shaqa la'aan way sii fi doontaa ubadka maanta joogina wali doonaan xaalad tani ka daran ayay geli doonaan marka inaan de isbadbaadino kolkaan leenahay isbadbaadintu meel bay leedahay meel wax ka bilaabmaan bay leedahay waa inaan maaragtay inama matalaan nidhaahdo ragga xaafadaha laga soo qaaday baarlamaanka nooga dhigan diidno ee qolooyinka lagu soo qaaday waa inaad diidiin waa inaan diidno sankema waa inaan maaragtay si xorriyad ku jirto iyo dadnimo ku jirto oo dadnimo leh oo waxdiida waa inaad maaragtay karaamadeyna aanu doonanaa oo shacab ahaan iyo bulsho ahaanba wax ku raadinaa waad maasantahay yaxye sida aad arkaysiin ciwaanka aan uga dhignay waa noo oo sankee manda Djibouti in republique en otage waxaan isla geenay oon isla garanay haddeetole wadanka inay badbaado iyo vood iyo xajirna ay badbaado qaran ahdin ay joogto waxaanan garanaynaa haddeetole waaqici imika inaan la ka hadlaan jecelahay katriamka iyo troisiamka wax ogolaa ma jirin kii premier mandate ay deuxième mandate taa waxa kama sheekay laakiin troisième kaadka qof ogolaa ma jirin laakiin mechanism baa la wixiyay in katriam mandaga lagu qasbo saynkiya mandaga maanta dawladdu way og tahay dadku inay raali ka ahayn oo kaga sii daran tahay waxa dadka la wadaaga waxaad ka fishiin waxay dawladdu ay diyaarisay sida ugu qasabto dadka inay mariso
sida ay afduubkan saynkee maandaaga dowladdu maxaa isleeyihiin way diyaarisay ififta ninkoo ku bilaabaya ciidamadan la deerinayo iyo waxyaabaha kale soo socda maxaa dadka u sheegi karaysiin dadka inay diyaar noqdaan mandela ها واساد شيغيسيد way diyaarsadeen de sidaas sheegaysid afar marka horena maxaa la dhahaa Ismaaciil Cumar 99kii ilaa imika de sidii uu ku yimid iyo sidii uu wax ku qaatay waa la wada garanayaa looma baahna in loogu soo celiyo ummadda reer Jabuuti ilimaakii u dambeeyay imikana waa wadadii uu wuxuu iska socdo mar ciidamadu ku baxayay mar maxaa la dhahaa kolbadda meel buu ku baxay mar hooy dumarka iyo waxaasuu sasabanayay horta kii rag la yidhi hawadaba uu ka baxay oo maaragtay isaga uu ka quustay maanta waa ka ciidamada dhowr jeer buu ku baxay dumarkana 2 jeer iyo 2 maandaa waxayd mooyaan ciidamo iyo dumarkana ku baxay maanta dumarkii iyo raggiiba uu israaciyay maanta waxa uu miciin biday ilmo maaragtay 8 jir ah ama 7 jir ah ama 12 jir ah oon cod balahayn oon weli gaadhinba maaragtay adilba noqon oo maaragtay maxaa la dhahaa ashmineera ayuu maanta dhegaysanaya ayuu ka dhigtay maaragtay inuu ay kiciyaan ay maaragtay uu halqabsi ka dhigtay uu yidhi waan aqbalay ii soo baxa ii soo ururiya waad arkaysay marka waxa la yidhi de nimaad fadhigiisa arkaysi waxa la yidhi uma baahnid joogiisa marka maadaama aad arkaysiin Ismaaciil Cumar wixii uu ku soo dhaqnaan jiray iyo wixii uu ballan qaadi jiray oo uu waxbana iska bedelin haddana uu tii uu ku socdo ummadda reer Jabuuti waxa la gudboon in inta ayna dhibaatadu ku sii fidin ay ku sii ballaaran maalinba meel kale ay kaga soo jabin ay haddeeta ayna baabi'in de inay anigu waxaan odhan karaa inay soo baxaan ay si cad ay u diidaan adduunyaduna maanta indha kulul bay ku haysaa Jabuuti intaasoo ciidan baa joogta waa maxaan ku dhahaa iyaka wuxuu ka yidhaahaa meeshan hadday fadqala gasho al-shabaab iyo balaayaa soo hoos gali laakiin waxa dhinaca kale marka loo eego in isaga laftigiisa loo ogolayn inuu fadqala sameeyo uu tacaddi sameeyo waxa ku tusayso dawlad Soomaaliyeed buu shalay wuxuu digtaynayuu lahaa food la isla ogol yahay oo daacada samee wadankiisa food la isla ogol yahay weligii kama qaban qaadin laakiin kolkuu Soomaaliya ka hadlayay dad uu isagu wato uu wax ku qarsanayuu rabaa inuu meesha maaragtay u digteeyo marka ummadda reer Jabuuti waxaan odhan lahaa waar qandaraasyada iyo dhaqaalahan inagu dul guranayo iyo oohinta iyo baabi'iina iyo dhimashada unbaa inii kordhaysiya faqriga wax kaloo inii noo soo kordhayo ama noo soo baxay ma jiro anigu waxaan odhan lahaa ummadda reer Jabuuti waxa ugu dhaqso yar ee ugu khasaaro yar ee iskuna badbaadin karaan dalka iyo dadkana ku badbaadin karaan inay soo baxaan meel alla meesha ay joogaan ilmaha heejada ilmaha caasimad lama joojin karayo caalamkuna hadduu arko cududooda iyagoo israacay oo soo baxay de waxa lagu qasbi karaa inuu maaragtay meesha ka tagi karo oo barashan lagu saari karaa laakiin nin walba hadduu aqalkiisa ku ooyo amba maalinta loo yimaado ilbaabkiisa loo garaaco inuu hoos u ooyo de waxa weeyaan oohintaasi macno weyn ma samaynaysa in la isku wada geeyo oo kol mida la ooyaa u baahan oo loo huro nafta intaasaan odhan lahaa mudane farax kolley qorshay degeen qorshaha imika waxaan madaxiisii inay bilaabantaan iyaan maleeyaa taasoon wax ku xidhanayno oon leenahay ciidamadan la dareeriyey bal macnahooga iyo waxa loo dareeriyey iyo ciidanku horta ma ka maarmaya dadkan saciidow horta ciidanka mar hore iyaa qorshuhuga la dhigay imika tani waa inta u dambaysa weeye ciidamadu waxay gacanta ugu jiraan niman jufa ah oo aqoontooda military ay aad u hooseyso raggan horta waxaa laga dhigay rag saraakiil ah weyn raggan iminka baxaysa mar hore waxaa baxay ilaa 50 sargaal baa baxay oo raggii haldoorka ah ciidamada way wada baxeen qofka horta inuu de retirad u baxay xaq buu leeyahay retiradkanse qayb uunbaa lagu qoraa dad uunbaa lagu qoraa dadka Ismaaciil Cumar ay isku jufada yihiin
uma baxaan retreed laba nin baa baxday inta labadaana waxay ahayn laba ka horjeeday siyaasaddiisa retreed haddii wax la bixi lahaa sakariyaa bixi lahaa kow mas-uuliyad weyn oo ta madaxweynaha ka weyn ayuu sidaa ninka taliyaha ciidamadii waa nin waayeela aqoon la-aantiisa militari iyo xirfadda uuna lahayn horta dee xirfadda way ka siman yihiin oo ragga la jufadii madaxweynaha ila wixii jira inaan sheegnaa loo baahan yahay ma tagaan iskuulle looma diro iskuulle uma baahno oo derajada iyagu kuma helayaan merituar kuma helayaan amba waxay kulliyada ay soo mareen kuma helayaan waxay iskaga helayaan de waxay iskaga helayaan liinka hadda jufada ismaaciil u jaaxay oo de raggan aqoontoodu haddii laynii sheega dee kulley tooliya waad ogtihiin raggan taliyayaasha ciidamadu waxay u dhisan yihiin sida hay-adaha dowladda ayay u dhisan yihiin laamay leeyihiin laamaha waxaa wada jooga ragay madaxweynuhu isku jufa yihiin baa jooga kuwaasi retreedna uma baxaan kulliyadana ma tagaan ragga maanta baxay waa rag ka soo baxay iskoolada faransiiska iyo maraykanka ugu qaalisan kulliyadaha ugu qaalisan rag ka soo baxay weyn ragga howlaa loo diraa horta systemka waa inay dadku fahmaan reer jabuuti waxma yar fahansiinaya haddaad ii saamaxdid qofka ninka sargaalka ah markii uu soo baxay ee la arko ismaaciil iyo sakariya arkaan sakariya uu nootaynayaa waxaa loo diraa amba istash amba mission exterior baa loo diraa oo soomaaliya loo diraa soomaaliya markuu amba uu ku maqan yahay amisom amba tax force ciidamada ladhaa east african force ladhaa marka loo diro mudduu ku maqnaanayaa 2 sano amba 3 sano waxaa loo jeedo qulaata horta in cagaha dhulka looga qaado jabuuti meesha uu jagada ka haya laga qaado marka halkaa laga qaadee bannaanka loo diro muddo wuxuu ku noqonayaa un-ka iyo meelahaas ku dhex jirayaa ooyi aad uu ku jirayaa 2 sano oo 3 sano markuu ku jiro missionka way soo dhammaanaysaa waa la isbedelaa kuwa kaleeto oo aan jufadu ku jirin oo aqoon-yahana ah oo kartile ayaa lagu bedelaa iyagu uu soo galaa ninkii jabuuti raggan imanka maanta leegi dibad ay ka soo wada galeen colonel xasan jaamac colonel cali aadan xumed colonel breed ragga aad arkaysiin waa rag soomaaliya missionna ka soo qabtay way soo galeen waddanka meel loo dhiibay ma jirte way joogayaan mudday joogayaan ilaa 5 sanay joogayaan waxay ahaanayaan xafiisyada mariisana oo rag iskuulla qaali ah ka soo baxay ragga ay ciidamada haystina ee gaardi republikaanka haysta dee force areaanka haysta badda haystina kulliyad military cagaha ma dhigin baradoxka dhibaatada waddankeenna mas-uuliyad darrida uu ismaaciil cumar raggaa dagaal hadduu dhaco dagaal maxay ku gelin karaan ciidanku wuxuu u baahan yahay inuu nin aqoontiisu kulliyad military soo maray ninku hadduu chef de bataillon hadduu gaadho waa inuu école de la guerre ka soo baxo sakariyaana soo marin kolka iminka raggan la saaray waa silsiladii iska socotay oo la dhammaystirayo weyin wax iminka bilaabmay maaha hadalku wuxuu ku dhan yahay war ciidamadu maxay samaynayaan ciidamadu 3 shay bay ilaaliyaan waxay ilaaliyaan dalka integrity territorialka dastuurka constitutionka iyo ilaaliyaan ciidamadu kadibna dalka dadkiisa ilaaliyaan saddexdiiba haddii ayna maanta ay dastuur ma jiro oo ismaaciil siduu doon dastuurka ugu tuntay kow waddankii ma dhanno 2 shacabkii waa kuwa gidaarada ka ooyaya oo niman caadhgo ah wuxuu ku leeyahay nin waddanaya dhibaatada dameerka ninka haysta ciidanka booliiska haddaba muxuu sheegan karaa ninkaas waddani nuucee abuu yahay waddaninimada dhimatay ee uu ismaaciil mas-uulka ka yahay ninka lagu leeyahay nin caadhgo oo laga soo saaray xabsi oo xafiis ka soo baxay oo qarqar qaawan iyo alaabteedii qaatay waa nin waddanaya waxasaa looga qaatay alaabtiisa laakiin waxaan odhan lahaa abtiga meesha gidaarka ka ooyaya inuu feenna dhacayeed hala dilay nolosha la kale geeridaa dhaanta nolosha caynkan oo kale ah feen inuu la dhacayd rasaasa lagu tiriyo haddii reer jabuuti anagu dadkeen haddayna dadkii doonayn inay xanuunsadaan cadaalad heli maayaan hadday doonayn 2 saacadood oo qudhaato weecayo calisbiic la fadhiistaa ku filan taliska jufada ee TPLF-ta labadaaba ku filan haba lagu dhintaba mudane farax maxaa dad jufaad sheegtay maxaa inta kale loo dareerinayaa oo ciidanka looga saarnaa ujeeddadu waa maxay dabtaa ee imika ku soo beegan dee jufadu waxay ilaalisaa wax kale ma ilaaliyaan sakariya ma wax kaluu jooga waxaa la aaminsan yahay inuu sakariya kursiga ilaaliyo wax kaluu jooga iyo maxamed jaamac iyo
wahiibiyo wacaysyo wax kale uma joogaan waxay u joogaan inay kursiga ilaaliyaan iyakuna way ogyihiin anakuna waan ogna laakiin in la ogaaday waa inay ogaadaan iyakuna kolka kuwan maxaa iyaka ciidanka maartadka hore loogu gelinaya wuxuu loo baahan yahay ujeedada dhabta waa maxay waxaa loo gelinaya kuwan artiradka kuwan iyaku jifadu waxbay eegtaa laakiin kuwan la dareeriyey maxaa loo beegsanayaa kuwan la dareeriyey waxaa loo beegsanayaa hadda waa nin aqoon leh oo meelaha joogjoog ma noqonayso ninkaa inuu mar kululadaa dhici karayso uu dhiig yeesho uu yidhahdo war sidan kuma jiraayo waa rag la iska dheeraynayo waa dad la iska dheeraynayo aqoon la-aantoo dhan baa soo hadhaysa militariga waxaa ku soo hadhi doona rag aqoonto aan kulliyada soo marin oo dee islama shaqayn karaan maxamed jaamac ma nin kulliyad soo mara buu iyo la shaqayn karaa waa maya waxaa hadhi doonta aakhirka inay rag aqoon militariba lahayni ay isku soo hadhaan ciidamadeenna wadhantahay mudane farax yaxye halka haddaan in yar raalli noqo in yar haddaan ka boobo yaxye hayga raalli noqdo haddaan hadalkaa farax baan yar adkaynaya raggaa la dareeriyey waxa weeyaan anu sidaan u fahmay ama kalsoonidoodii baa la waayey ama shaki baa laga galay ama kalsoonidoodii oo inay war keenaan ay kaba gur iyo war iyo daba raxleeyaan taliska ay warka soo dhuraan baa laga waayey oo kalsoonidoodii baa la waayey amba shaki dee shaki baa markaana imanaya isla marka kalsoonida laga waayo shaki baa imanaya xaguu ku xidhan yahay iyuu la shaqeeyaa muxuu maagan yahay xaguu u jeedaa marka sidaa darteed baa loo dareeriyey raggaas waa kalsoonidii baa la waayey hadalka murtidiisii raalli noqo yaxye intaasaan ku daray aad waad mahadsantahay may waan ogolahay yaxye mid kale aan ku darayo su'aala oo taasa ma dhici kartaa waxaa xilligan loo beegsaday iyo saynkeemandaaga in la foorseeyo la doonayo ee dadka in shicibkana maaragtay ilaa haddii loo baahday ciidanka in loo hagaajinayo dad shicibka garaaca in loo diyaarsanayo kow shicibka laftigiisa iminka waa naqaanaa kolkaas maandaa qasab in lagu mariyo la doonayo dad baa la dili doonaa dad baa la xidhi doonaa siyaabo badan baa loo kala adeegsan doonaa oo iminka odagan la jirdilay iyo waxaan madaxeegi waxayaan ka bilaabantay kolka ma u malaysaa inay dowladdu ay haddeetoole ay u diyaar garowday oo qalab mekanismi ay diyaarisay mekanismiga dadka maxaad ugu sheegi kartaa ood ku dareensin kartaa ood u sheegi kartaa waxay u diyaar noqdaan tan kale ciidanka la deerina qayb ma ka tahay ujeedooyinka xaaladdan iminka dowladdu inay qasab ku muquuliso ummadda kala bax yaxye waxa weeyaan marka ugu systemkan maanta shaqaynaya ee waddanka xakumo muddada 44 sano ah horta waa system isagu ku talagalay sida uu rabo maahayna si kale in loo shaqeeyo rabin ma rabo systemkani adigu inaad ka fikir duwanaatid ma rabo waxa la rabaa jeer meesha aad ka soo biyaa cabaysina in la ogaado dadweynahan maanta lagu cagacagaynaya sida loo dhibaataynayana waa intii ugu dambaysay dhibaato waxay ka sii calaacaleen dadku waa wada dhibaateeyay dhibaatada reer Jabuuti way wada gaadhay ciidanka kolkaad sheegtay ciidanku kolkuu raggu yahay nin wax diidaya kolkuu yahay ee uu karti leeyahay sidaa uu soo sheegeen walaalahay oo cilmiba ku soo dhiftay magaca amba afka carabka ku soo dhiftay laba xaalaba waa lagaga cabsoodaa ninkaas marka ugu horeeya waxa lagu qaadayaa inuu nin deemisa ku socda oo aan waxba aan loo tilmaamin inuu yahay horta way dhici kartaa taasi oo ragga ciidamada way ka suurtowdaa waana laga cabsoodaa loomana baahno mid kalena way dhici kartaa inuu ciidanka laftiisa dhanba ay ninkaa ku kalsoon yihiin oo kalsoomin buuxda ay raggaa u qabaan oo meesha uu guux ka soo bilaabo ciidankana way dhici kartaa ta saddexaad imanaysa way maandaagan maartay jilicsan maartay sii socota wixii fulin lahaa si ay dee u fududaato waa inay noqoto teeraan yacni aan dhibaato iyo qodxa waxba lahayn wax ka hor yimaada lama rabo meeshanna waxa weeye systemkan haystaay oo taash ninka loo haystaay waa shacabka marka ugu horeeya waddanka ayaa shacab yaa oo taash loo haystaa laakiin dad baa ku nool dad aan teere meesha ku haysta oo amba maaragtay waddanka dhawaan yimiday amba waddanka aan u dhalanin amba waddanka dibadiisa ka yimid dadkaabaa ku nool meesha
dadkaasi ma yaqaanin dadka reer Djibouti iyaku ninka reer Djibouti ee hadha waxay ka hadla arrimaha waxa la oranayaa ninkaasi waa qabyaali baa la oran farta lagu fiiqaya laad ogaatiin arrintani maanta socotay horta dalka aad bay ugu darantahay waa halis weeyaan dhanka ciidanka kolka laga hadlo waxa uu farax ka dhawaajiyay ciidamadu waxay ilaaliyaan suuqdimaheena waxay ilaaliyaan constitutionka wadanka ayay ilaaliyaan jiritaanka qaranka amba ciidankan way ilaaliyaan saddexdaaba maanta ma jirto waa saddexdii ugu muhiimsan weey marka sidee baan maaragtay waxaan uga wajihi karnaayo sidee baan karnaa ummadana sidee wax u dareensiin karnaa su'aashu waa taa weey dadweynahana dhageysanaya annagu maaha inaan leenahay dadka war xaqiinii doonta mooyaane annagu nimalihiin baan leenahay wadamaha oo hubka qaata nimalihiin laakiin nin kastiba oo shacaba xaq buu leeyahay meel uu seexdo nabadgelyadiisa iyo shaq uu xeer u leeyahay inta haddaanad haynin wadankaas aan sheegaynay ma jiri karta marka odhan karna wadan baan leenahay marka dadku waa qaxooti baan odhan karaa hadalkayga ku soo dhamayn karay صح سؤاشي ugu dambeysay adaabay afkay ka saartay yaxye jawaabtaada aad keentay su'aabtii ugu dambeysay ayaan doonayaa inaan nimeriyo Mandela aayaha lagu ciyaarayo ee la qaadanayo wadankan waa horta waxa ugu horeeya ee khasaaraha la gelinayo waa wadanka waa dhalinyarta wadanka horta waa dhalinyarta soo koraysa ee jiilka waxa horta la gelinayo khasaaro waxaan isla soo sheegnay imika ciidan iyo boolis dad ajnabi ah naxabiis adeegsanaya in shicibka laga horgeyn doono si loogu qasbo saynkee Mandaga waxaan jecelahay hadalka su'aashii ugu dambeysay anoo ku siinaya mudane Mandela maxaa haddaba nala gudboon oo shicibka la gudboon u diyaargarow iyo sidee inay filaan siday uga falceliyaan arrinta see u dhicin bal see u habboon aad dadka aad u sheeglayd kolka horeba dadka reer Djibouti looma baahnayn waxa weeyaan de waa la iska samaysan jiray oo waad garanaysaa in hees xitaa lagu qaaday oo la yidhi ha wareere weelka maransi waad garanaysaa heesta iyo intii Mandaya lagu qaaday weligoodba ha qaylqayliyana weelka maransi unbay hayd marka dadka reer Djibouti weligoodba codkooga unbaa la qaadan jiray oo weelkan maran bay iska qaadan jireen kii buuxana isaga qaadan jiray tani kale maxaan ku dhahaa aad ka hadashay tidhi dadka lagu horgeyn doonaa dadki waxa weeyaan annagu maanta waa noolahay alxamdulillah naftu way nagu jirtaa adiga aniga ninka maxaan ku dhahaa Yaxye Faarax Cute iyo inta kale ee badan ee tiradooda aanan soo koobi karayn ee ka hadashay midiyaaga inta macaaradka ah inta culumada ah inta activistiga ah waxa aan u sheegaynaa ummadda reer Djibouti oon markhaati uga dhigaynaa annaka dad baa naga horreeyay waxa Umar Cilmi Khayr uu nool yahay maanta laakiin noloshu ku nool yahay ma garanayno waxa ka horreeyay aadan Roobla Cawaale waxa ku xigay Janaale waxa ku xigay Maxamuud Xarbi waxa ku xigay raggii wadankan u halgamay waxa ku xigay Maxamed Jaamic Ceelaabe dadkii nacab waxaan ka wadaa siyaasadda iyo olaysa bulshada iyo maxaan ku dhahay fikirka iyo isbedelka aragtida u ahaa waxa ku xigay Ismaaciil Geedi Xareed waxa ku xigay inkasta oo Ismaaciil Geedi Xareed waxaan oran karaa inkasta oo waqtigii dambana ay debaashu way la fadhiisato nin waxa la ninba sidoo ay u fadhiisatay u qalaaye meeshay la fadhiisato ku qalay waqtigii ugu dambeysay Allah yarxamo laakiin hadafkiisu kolkii ay Ismaaciil isqabteen wuxuu ahaa inuu wadanka sidan uu ku sii soconayn oo uu diiday gabayo baa kamid ahaa Muumin Bahdoon baa kamid ahaa dadkiisi maanta way socdeen annaguna sida dadka u socdeen un baan u socon doonaa waxaan ka wadaa mustaqbalka ayaa waxa tiri mustaqbalka waxa iska la dhalinyar dhibaatada wadanka gaadhaysa iyo maxaan ku dhaayay sixir bararka iyo shaqo la'aanta iyo guur la'aanta iyo guri la'aanta iyo kooraan la'aanta iyo nadaafad xumo kolba inta jiilka cusub ee dhalanayo unbay maaragtay u haraysa
marka annagu waxaan gudbinayni waxa weeyaan dadku waxay moodaan markaan meelaha ka hadalna dadku inay gebigooguba wax wada doonayaan annagu waxa weeyaan waxaan gudbinaynaa waa meesaash waa wacyigelin waari maysida war ha ka har weeyaan marka waxaan aan taariikhda imika usoo qaatay dhibaatadu dhallinyarada ayay u hadhaysaa maantana Djibouti waxa lagu tilmaamaa boqolkiiba dhowr iyo 70 ama dhowr iyo 60 waa dhalinyar baa lagu tilmaamaa maanta kolkuu ogaaday inay dhallinyaradiisi kacdayna cabsi uu ka qabo waa ka show iigu dhiga yidhi maaragtay halkaasoo maaragtay showga iyaan ka daawanayaa gurigayga oo iyagaa ila hadlay oo iisoo qasba marka waxaan leeyahay ummadda reer Djibouti kow fariinta aan farayo dhalinyar iyo waayeel maanta waqti kursi laga fikira ma ah maanta qofkee madaxweyne noqonaya qofkii laga fikiraya ma ah maanta ninka madaxweynaha noqonaya islaantiisa lagama fikirayo aqoontiisa xitaa hala iska daayo waxaan sidaa ka wadno maanta waxa loo baahan yahay badbaado in la isku tago la is aamino la is aqbalo la iska daayo qabiilistiga la iska daayo qoloqolaynta la is gacmaha la is qabsado la iska rida ninka afbida lagu hadlay isaguna waa meesha kaliya ee uu ka soo gala dadka wax is ogol ma jiro wax is raacsan ma jiro dad u diyaara waddanka inay igala wareegaan ma jirto waan iska sii joogi waxyaabaha uu ku andacoonaya waxa marka waxaan odhan lahaa anigu oo ummadda meesaash u diraya kolka la helo in dastuur la soo celiyo in la tartamo in dadka la xulo in critique lagu qoro qofka oo qofkan aqoontiisa iyo qofka madaxweyne noqonaya muxuu yahay iyo careerkiisa la eego waa marka nidaamka la soo cesho laakiin maanta dadku waa wada halgamayaal adu halgamaaba tahay oo codkaaga waqtigaaga waxaad u hurtay idaacadda u soo fariistideed maanta wariya aad halka waqtigaaga u bixisay waa halgamaa dadku marka ninka xisbiga haysto iyo ninka activistiga waa wada halgamayaal weeyaan qof titarli ma jiro marka waxaan leeyahay ummadda reer Djibouti gebigiinu halganka u kaca waddankiinana xoreysta midoobana waxa ugu koobaad ee ugu muhiimsan inaan u sheegno ummadda ay tahay haddii dadkaasi midoobaan oo gacan mida noqdaan anu waxaan idhi waxa kaloo dhanba u dhammaan oo la is aqbalo oo la is aamino oo inaad dadka reer Djibouti mid yihiin oo waxa la doonayna ay tahay sinaan iyo cadaalad ay ugu weyn tahay sinaan iyo cadaalad ay ugu weyn tahay intaas haddii la isla garto anigu waxaan leeyahay 7 cisho ma qaadanayso haddii laga soo baxa minheejad caasimadda maalin kaliya haatay oo la joojiyo waddanka صح waxaan ka fahmay hadalkiisa laba arrimood oo waaweyn baan kusoo go'aanadii ta ugu horeyso dadka oo is aamino is gacan qaada oo fahma inuu Cumar cadow yahay oo iyagu ay maartay iyagu is fahmaan ay midoobaan kow iyo talabaadna in loo dhinto ilaa mowqifka amba maartay la gaarayo dadku is xoranayaan badabaan ayaan Mandela hadalkiisa aan u fahmay Faarax Cute waxaan jecelahay inaad hadalka wax ka tiraado haddaad xogaa maasa heshid aad noo raacishid Mandela ba soo dhameeyey laakiin kulley aniguna waxaan ku daraya malaha oo aan ka soo siyaadinayeen waxaas ku xoojinayaa maaso waan neehayaa maasada la yidhaahdo iska diida inay diidaan inay dadku diidaan Faarax Cute raali iga noqo yaa macallinkaaga nooga bilow hadday kugu jirto Cumarow yaa macallinkaaga iyaa isaga u macallin lahaa waan ka samayn doonaa mar hore laakiin haddan isaga sawir baan keersaynaa dadka dunidoo dhammaanteed daalaadhacaysoo cudur duuba yimid oo dowladaha horumaray kuwa dawada haystaa dadkooga u dirayaan digniin ay u dirayaan inay dibad u soo bixin da'yartii dalkiisuu dugaag weeye dixintiyo damiir aan lahaynee da'yartii dalkiisa dugsiyada ka daabulay ayuu dibad u soo baxay dib markay u laameen daarihii ku noqdeen duqayday u nooqdeen duri bay u geeyeen dufan quutayaashiyo
kuwa dabar nashleeye dalku muu ka maarmaa durmaanka u tumayow dembigaa uu naga galay dacal baad ka leedin diintiyo dastuurkiyo dalka iyo dadkiisaba dan inuu lahayn baan door hore inii digay docdocdiyo qabyaaladda dayn iyo diimiska doobigeega caanaha dibadaha u dhoofaan door hore inii digay dekedaha dalkeenna dollaarka laga helo duul yaroo docdiisii dibireen ku naaxeen door hore inii digay dadka reer jabuutoo dabka dheriga loo shidin doofaar madow oo dibad nooga yimid baa dunyadii dalkeenna loo diiqayaayoo diyaaradaha ku iibsaday door hore inii digay dilaal weeye caanoo halkuu diinar joogaa diiradda u hayste dalkan aynu leennahay dariiqii u wacnaa mee dumeeradeennii inuu dayacayuu diinaar ka raacaan door hore inii digay dadka reer jabuutow digniin weeye taniye waa kama dambayse iska diida oo dhaha maxaa noogu kaa dihin oo kugu dooranaynaa intaasaan kusoo koobaya wixii oo dhanba waa tiriba barnaamijkiiba waa gabayaaga maantadaa buu ku dhan yahayba mudane yaxye maxaad ku odhan inaan waxbaad ku biirsanay haddeed inaan soo dhamin arkayna waxaa dhameeyey faarax baa dhameeyey maasha allah faaraxo waan kugu hadleynaynaa walow waa xikmad weeyaan waxay ka hawlgashaa iyada laftarkeygu halganka waxaan bulshadeenna waxaan odhanaynaa dhowr inay maaragtay ku muujiyaan inay diidan yihiin maandaagan khasaaraha aan odhan karayno marka ugu horreeya dadkaas inay isku soo bixi karaan si nabadaysan ay meelaha iskugu iman karayaan iskugu yimaadiin ayaga oo codkoogii iyo borarkoogii wata horta waan faraynaa ummadda taa haddii ay keri waayaan nin kastiba saddex afar haddii la iskula socdo inay handana haystaan borarkan maandaaga shanaad ma soconaya la idhaahdo marka ugu dambaysa haddii ay keri waayaan taana kolka raacaan inay halkaa yare sida ninka kabiteenka kubadda kolka la ciyaaray no sankee maanta halkaa ku qaataan waxyaalaha loo mari kara marxaladaha isbeddelkay ka mid tahay waan ka baxay aad baad u mahadsantihiin waan iga mahad celinaynaa barnaamijkaysa baan kusoo xidhanaynaa reer jabuutina waxaa farin haddaan maaragta u soo kobo barnaamijka maanta wuxuu kusoo gaaroodnay saynkee maandaa ma jiro waxa weeye waa noo saynkee maandaa dowladdii waddankeennii baa halis ku jira maantana kursi iyo wax maaragtay tartan iyo ma jiray waddanka in la rido iyo u taallaa dadka reer jabuutina waxaan u sheegaynaa inay cagajuglayntii ay maaragtay diyaar loo leeyahay iyakuna ay diyaar noqdaan siday ka yeeli lahaayeen ciidankan lasoo qalbeeyey ee maaragtay lasoo reereeyey iyo booliiskan iyaku laftigiisa dadka ajanabiga ummadda ku sii deynaya dad ajanabiya oo dadka aan garanayn kolka yaa weliba darees loo gelin doonaa oo dadka garaaci doona kolka waxa weeye dadkuna inay saa digtooni ay u galaan hawlna haddeetoola sidii wax layskaga qaban lahaa waa in way naga dhaxaysaa waan la isweydiin saan tvna taabuu runaantii dhab ahaan u diyaar u yahay isaa iyo waxaan leeyahay dadweyahana daawanaya isma dhaafno maaragtay iyo mar dambe xiise kale oon iskugu imanno insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Why